السلام عليكم. تضو عستو هاي راتا كي رق وحجر مانتا هليي واه ومد الصوماليوضو إدل لكن أنا هاي من هدف يوجد the turn line. Please share it because و وحقيق دين أنا هوب إن كل جران كرتان خطرتها إنجليزية نفتي تيدا مركز سكديسان so you have to be understand لكن إن الدرانتو رنتو حيته إن دديري أوجادان is a very very bad أو حاضر فول so هذا روح إنه إيجي دونا وحلي هذا United Nations كه iyo burcadbadeeda waxaynu ka soo sheekeynay kow burcadbadeed in la abuuray laba waxaynu aragnay xaqiiqdii EEZ-ka inaanan u baahnayn oo 200 nautical miles territorial ay nagu filan tahay saddex waxaan garanay in badda Soomaaliya laga kalluumaysto all that things oo dhan waa isku wada raacsan qabo okay so let's have a look waxa United Nations ku ay ka qabaan waxaad hortiina ku aragtaan United Nations ODC waxa la yiraahdaa Office of Drug and Crime okay ده حفيزكاس wuxuu qaabilsanay inuu dhiso maxaabista shuruucda dadka caalamka dambiyada ay ka kala galaan hadii wax cusub aysan jirin sida burcadbadeed oo kale fanninkeeda waxa bixiya dawladda Ingiriiska sababta dawladda Ingiriiska u bixisana waxay tahay hobyo okay dadka hobyo easy ay la tahay hobyo is always battlefield meel dagaal ka jiro الله نحرسته مدحويني هو كيميكو يوزير كيسي حرير كعالمية in 2000 I believe it was 2017 and 2018 وحي negotiation لقلين شركة وحي negotiation لقلين اسكو داين negotiation لقلين شيدالك الله نحرسته كيميكو يمامو الكيسي which is كيميكو وها من rejection بدن من لبارتا بدن aan waxba ogolayn waxba ma ogolayn kiimiko completely wuxuu ogolaa male ma ogolayn shidal in la qodo ma ogolayn in dekada laga dhiso ma ogolayn all that things oo dhan laakiin wuxuu ogolaa waxa loo yaqaan dialogue and diplomacy inuu miiska fariisto wuxuu diidayo uu diido dan markaad weydiiso tiraado maxaa horumarka lagu diiday iyo maxaa waxan loo diiday jawaabtiisu waxa ahayd ninka wax ku siiyay waa nin adiga wax ka doonay so wuxuu ogaa waxa uu haysto iyo waxa maanta Soomaali meesha ay taagan tahay so he was balancing all the time waxaynu arki doonaa sawirro aad u foolxun I know qaarkiin haddii aan oran lahaa sheekadu waa meel kale dan inay wanaagsanaan lahayd sawirrada arki doontaana sawirro aad u foolxun maxaa keenay sawirradan waxaa keenay markii burcadbadeedii ay soo gaadhay hobyo xaradheere ceelhuur in that zone waxaa bilaabmay in ay soo qabtaan maraakiib hub sida hubkaasoo CIA-du ay fan ku gelisay Ukraine si ay Georgia dagaalka Ruushka uga qayb galaan dan markabkaas waxa lagu afduubay hobyo zoonaheeda la keenay so in that point dadka og hubka inuu saaran yahay cidda og hubka inuu saaran yahay qaladka ay sameeyeen ay BBC-da manifestadii markabka inay u direen then waxa la tiigsaday kulligood in la isticmaalo resolutionka 1851 oo ah in dhulka loogu tago badda loogu galo la dilo marka la soo qabtana la geeyo wadamo kale oo maxaabiis looga dhigo si hadalkaasi iyo waxay arkeen aysan u bixin maadaama ay yihiin dad isku xiran oo heshiis ka dhaxay so another word hobyo waxay ka mid tahay waxyaalaha dhaliyay badda Soomaaliya in la yareeyo why first for format shidalka meesha hadda khayriye ay ku qodayaan in territorialka laga bixiyo la geeyo EEZ-ka marka hadii 12 laga dhigo 13 mile kadib waxa ah shidalka meesha laga qoday so in that conceptigaasi waa in la yareeyo xadka badda Soomaaliya yaa rabay dawladda Ingiriiska yaa abuuray burcadbadeeda maxaa looga dhigay marmarsiyo so have a look burcadbadeeda sidii iyaga markaa loo qaabeeyay marka xabsiyada la geliyay ko burcadbadeedu
hopefully inaan weydiin karo in regional trika inaan soo ogaano marka burcadbadeedda waxaa laga soo qabtay Soomaaliya waxaa la keenay waddanka Kenya waxaa la geliyay maxaabiis fundingkana waxaa bixiya dowladda Britishka and then ragan anigu ku jiro waxaa qaban qaabiyay hay'adan inay u wacaan oo yiraahdaan sida xuquuqda bini'aadamka loo dhowro iyo sida Soomaalida maxaabiista sharcigooda marka sharci lagu xukumo ma uusan jirin Kenya ma hayso Soomaaliya ma hayso Ingiriisku ma hayo sharci badeedo qofka burcadbadeeda ama dadka booba ama dadka afduubo dhaca ma jiro aan ahayn wixii Ingiriisku uu sameyn jiray qofka ku xoog badan tahay dil oo sharci aan ahayn so dadka ka xabsiga Kenya la geeyay maadaama xuquuqda bini'aadamka aad aragteen lawyerkii hore Sheikh Sharif su'aas weydiinayay tobigii ku horeeyo intuusan go'in lawyerkii qaban qaabiyay in hay'adani uu ku andacoodo waxaa la xasuuqaa dadka Soomaaliyeed dan inay dad madax banaanay tagaan ogaada marnaba maanan ahayn dadka idinka dhinacina ama miskiina fadhiya and then waxaa dhacday dadka markaanu aragnay in lagu xiray 10 qof inay cadeysteen dambiga ay ku cadaatay 100 qof markii xabsiga la booqday dowladda Ingiriiskuna ay u dirtay xeer ilaaliyaheeda guud oo markaas sawiradan marka la qaaday waxa idin muuqda sawirka hortiina yaala dad Soomaaliyeed oo maxaabiis oo dhalinyaro ah waxa kaloo idin muuqda askarta dowladda Kenya haddii aad fiiriso calanka suunka ugu xiran dowladda Kenya askarteedu in ay yihiin askarta dul taagan dadkan Soomaalida ah in other word sawirkan aad arkaysaan waa sawirkan hore u arag waxaa sida loo qaabayn jiray oo loo maabayn jiray oo loo samayn jiray in lagu sooco dadka caday in laga sooco dadka Yuhuudda second world war loogu qoro calankooda Yuhuudda shafka si looga aqoonsado kuwa kale haddii lagu soo eedeeyay inay dambiyaal yihiin waa in la helaa evidence iyo markhaatiyaalkii sida ay ku andacootay xeer ilaaliyaha guud otherwise lacag ku bixin mayno then waxay noqoteen xabsiga la booqdo xabsiga aad arkaysaani waa meesha ay seexdaan waa meesha 5 milyan Kenya ay ku qaataan calanka aad arkaysaana waa calankii aad tirahdeen Cabdullaahi Ciise iyo xorriyaddii iyo awowgeen baa u dhintay this the wayga dunida ku tirid karaysa dhalinyaradan arkaysan waxaa laga soo qabtay Hobyo waxaa laga soo qabtay Haradheere waxaa laga soo qabtay meesha la yiraahdo Eyl Garacad Boosaaso Qardho iyo waqooyiga Soomaaliya also Baraawe iyo Kismaayo waxaa kaloo noo cadaatay intii xabsiga aan arkay sawirkan waxaan idin cad inaan anigu aan qaadin oo United Nations laftigooda ay qaadeen hadii la geynayo in xabsiyada laga dhiso meelaha qaar waxaan tusi doonaa haddii aad ka raadisaan xabsiyada United Nations ay ka dhiseen waxaa kamid ah xabsiga ku yaala Somaliland waxaa la geeyay 50 qof oo burcadbadeeda Puntland waxaa la geeyay 20 qof Somaliland iyo Puntland xabsigoodu wuxuu u egyahay sidaa dadku sida xayawaankii inay ku jiraan cage shabaq sida xayawaankii inay shabaq ku jiraan aysan lahayn sharci lagu xukumo laakiin ay yihiin nima dambi galay there is no doubt about anybody qofna maankiisa kama marra inay dambiilayaal yihiin oo wax dhaceen oo dambi ay geysteen qaarkood qaarna aysan ka ahayn dambi geysasho ay ka tahay baahidii markaa iyagu haysay inay ay ku dabaqaan dambigii ay galeen Yemen waxaa ku xiraa that time 20 qof oo dowlad ahayd oo burcadbadeed lagu qabtay so Kenya kii aad aragtay wuxuu ahaa Kenya xabsigan Kenya 10 qof waxay ahaayeen dad dambigooda qirtay iyagu waxaa lagu xukumay dadka Kenya dhaca bangiyada sharciga lagu xukumo inta kale Rumaan inay meesha iska fadhiyaan ayagoon la xukumin Seychelles in that time oo markii dambe gacanta ku haysta almost 700 in ka badan then waxay hayeen 23 okay so xabsiyadu dunida waa loo kala qaybiyay and this the way ga xabsiyadu ay ahaayeen Somaliland xabsigeeda waxaa dhisay hay'adan UNODC wuxuu dhisan yahay luxury iyada laftigeeda waxaad ku arkaysaa
mar aljazeera ay booqatay youtube-ka in dhalinyarada kubadda cayaaraysaa loo geliyey calankii soomaaliya yaa sameeyey middan haddii aad fiiriso calaamadda kor ku qoran European Unionka European Unionku waxay dhaqan u leeyihiin cunsuriyad ah inay kala soocaan ninka cad iyo ninka madow inay kala soocaan nin walba ayaga aan ujeedadooda iyo interestigooda aan wadin waxay leeyihiin idinku sidaad qabiilada isu kala socdaan inay isu kala soocaan diimo madhab siyaasad liberal whatever socialism communism democracy whatever ay yihiin lakin one thing they have a concept haddii ay taariikh ka barteen 6 milyan ee Jarmalku dilay adigu taariikh ka baro arankaagu caawa ka dhulka yaal kan ninka Kenyaatiga u xiranna sunkiisuna waa kaaga kii Kenyaati ku dul taagan soo miinayso waxa tahay waxaan jirin yaa baddaada ilaaliya ciidamada badda Yurub yaa soo qabtay dhalinyaradan ciidamada badda Yurub yaa mandate-ka la siiya ciidamada badda Yurub yaa kalluunkaaga gurta Yurub imisa kalluun oo tuugay soo qabtan maraakiiba zero so let's move on walaalkaygii wanaagsanayo Somaliland waxa ku jirta xabsigeeda konton and then waxaad aragtaa qaybta hoose inay yihiin qaybta sare waa Puntland Yemen 20 in that time waqtigaas dan taliyahana waa taliyay ciidanka booliiska waxaan kaloo aragnay sawirka xafiiska ciidanka booliiska uu u egyahay intaan qofka dambiga lagu soo qaban waxa ay ku qoraan and that it was not enough evidence qof dambi iyo maxkamad lagu keeno waxaad arkaysaan dharku dul saaran yahay xafiiskii maamulka la dagaalanka burcadbadeeda ama ciidamada badda ee Puntland oo ninkii Richard ahaa uu ka tegay this the way uu weeyay waqtigaas uu weeyay and prosecutors ka nimanka socialist prosecutors ka aan aragnay oo waxay ahaayeen dadkii labadii nin ee xeer ilaaliyaasha iyaguna waxaysan hayn any evidence sida qoriga qofka lagu hayo jaranjaradii uu wato ujeedadii markhaatiyaal soo qofku waa madoobaa qorina waa watay Soomaaliya oo dhan qori wadatay baddu aaday baddii territorialkeedii ilaa la xadeeyo dan can you understand meesha UN ay ka soo galayso in la xadeeyo baddii Soomaaliya si loo ilaaliyo waxaad ka maqasheen madaxweynaha hore Sheekh Shariif so waxaad u baahantiin oo kaliya hadda aan intusaya evidence-ga waxa aan aragnay oo aan ku aragnay maxkamadda Kenya gabadhii prosecutor-ka ahayd ee Ingiriiska dawladda Ingiriiska socotay eegaysay deeqda dawladda Ingiriiska meesha ay ku baxdo iyo in dadkana cadaaladda la marsiiyo waxay aragtay in ay u baahan tahay maxkamaddu in dib loo dhiso markhaatiyaal iyo prosecution inaysan jirin in video link dadkii dambiyada galay iyo guriyihii ay ka soo baxeen inaysan jirin in transcription service wax la yiraahdo maxkamaddu aysan lahayn another word markhaati male qofku waa iska xiran yahay hadalkayga maaha midaan rabo inaan idinku guubaabiyo dhinac kale idin wiciye maaha that is the United Nations presentation-keedii maalintaas ay soo bandhigeen maxkamadda waddanka Seychelles waxay leedahay qol air condition dambiilaha marka la keeno halkan waxa fariista dambiilaha marka la keeno halkan waxa fariista ninka muddaca dawladda difaacaya sharciga wali waxaan lahayn sharciga Seychelles iyo Soomaaliya u dhaxeeya maadaama aysan xad lahayn Soomaaliya iyo Seychelles waxa u dhaxeeya 600 nautical miles soo sidaa daraadeed xad male adduunkuna meel burcadbadeed lagu xukumaa ama sharci lagu xukumaan jirin soo sidaa daraadeed waxa ku xukumaan sharciga Kenya oo kale oo la yiraahdo 36 in dadka booba dadka kale ama geesta burcadbadeed hubaysan burcad hubaysan sharciga wadankooda lagu xukumo so waxa idin muuqda sawirkii maxkamadda dadka la saaray dawladda Kenya xabsiga waxaan kaloo ku arkay sawirka anigu maanan qaadin because I was not one of the specialists then presentation-ka marka dambe inay diyaariyaan oo wixii aan aragnay waxaad aragtaan on the left hand side dhinacayga midigta dhinaca bidixda screen-kina midigta screen-kina waxaad ka aragtaan dad taagan waxay gashan yihiin dhar maxaabiis oo Kenyaati ah maxabsigu wuxuu weegayaa dabadiisa sidaa haddii aad fiirisaan waxay ka gedisan yihiin maxaabiista kale ee Soomaaliga oo taasi waxay ku cadaynaysaa looyaradii Soomaaliga ahaa iyo aniga markaas socdaba wixii aan ku andacoonayeen dadka in dadka laga sooco oo la aqoonsado
soomaali inay yihiin calankooda looga dhigo kuwa kenyatana ay leeyihiin kenyatiguna ay leeyihiin dad leh dhar maxaabiiseed oo calankooda aan loo samaynin maxaabiista raashinka meesha ay ku cunaan haddii aad aragto fadlan waxaa kariya kenyati digsiga wax lagu kariyaana waa kaas waxaa la kariyaana waa soo nadaafadda iyo beg meeshaad dhunkan lahayd adigu caafimaadka dowladda kenya waxay ku andacoodeen maxaabiistoodu in wax la baro of course maxaabiista soomaalida cid wax ma barto maxaabiistaad arkaysaan musawirkani is not mine waa maxaabiista kenya oo waxbarasho ku jirta ha bartaan english ha bartaan maths ha bartaan dugsi dhexe ha bartaan dugsi sare jaamacad whatever educationka loo program waxaynu kaloo aragnay maxaabiist soomaaliyeed oo calankii soomaaliya loo geliyey oo dhulka fadhiyo kenyata fursa look at this meesha ay seexdaan maxaabiista soomaalida qolka aad arkaysaan bidixda ah waxaad ka aragtaan qol aad u yar waxaa seexda 6 qof so differencega u dhaxeeya maxaabiista labada maxbuus ee meel ku wada xiran waa kaas musqulaha ee maxaabiistu ay galaan soomaalidu is that askarta kenyatigana iyo caruurtooduna waxay ku nool yihiin xabsiga gudihiisa so xabsigu waa silik guri meeshaas banaankiisuna uu kaaya puntland xabsigeedu waa shabaqan daar xiran shabaqa albaabkiisa oo sidaa uu yahay maxaabiista of course waynu naqaanaa all of them haddii cid imaanayso in la sameeyo maxbuuska iyo meesha uu ku xiran yahay magaciisa liiskaasi haddii aad fiiriso waxaad arkaysaa dad tira badan oo ku xiran I'm sorry inaan ka gudbaa waa ku qasbanay look at the Hargeysa UN waxay ka dhiseen compared to Puntland okay waxaan imaan doonaa maanta markii aad lahayd odayaasha beesha H ee ka baxay magaalada Muqdisho waxay tageen Hargeysa dowladda Somaliland waxay soo siisay maxaabiis ma ducuf baa tahay ma garashaadan lahayn kaaba qabiil baxay dhalinyaradii soo wado gacanta u geliyey another word Somaliland waxay ku sheegtay inaysan aqoonsanayn dowladda Soomaaliya laakiin maxaabiistani waxa ahaayeen maxaabiis European Unionka ay u dhiibeen Somaliland Hargeysa xabsiga ka dhisanay wuxuu weegayaa sidaas 5-star hotel lama geliyo dadka maxaabiista reer Hargeysa intooda badan why because it's a luxury muraayado baahiyo kii kaya ka gedisan yaa dhisay UN why burcad badeeda daraadeed so what's concept in la qariyo hubka hobyo markabka lagu qabsaday shidaalka Sacuudiga la isku dul xiran in la qariyo Ukraine dagaalkeedii in la yareeyo xadka badda Soomaaliya Ingiriisku uu xukumo ciidamada badda ee Soomaaliya shidaalkuna isagoo shirkadda ka qodanaysa hobyo ayaga tahay in ciidamada nimanka markabka saaran ee dadka dilaa iyaga yihiin so watch it Soomaali so haddii aad aaminsanayd odayaashaada Hargeysa tagay waa la soo siiyey xabsigani waa xabsiga ay ka soo wadeen wiilashaasina waxaan inta si doonaa iyagoo calankii Soomaaliya xiran sida kuwa Kenya oo kale waxa uu qaybiya ciidamada badda Yurub markay qabtaan in calanka Soomaaliya u geliyaan which is United Nations ay aad uga dacwoodeen so maxay idin cad Puntland sida weeg tahay Hargeysana sida weeg tahay Hargeysa and Puntland Kenya ardadeedii maxaabiisteedii wax baranaysa xabsiga Kenya raashinku meesha Soomaalida loogu kariyo and if you look at it on the left waxa loogu karayaa Kenyatiga haddii midigta aad fiiriso waxa loogu karayaa Soomaali kala nadiifsan isna xogaa ugaalidu kala qorxoon mid waa iska jaalle I don't know mid waa cadda iyadoo waliba sawir ku fogay mid dabkeeda shidan midna dabkeedu waa dansan an waxa waqti cajiin meel yaalo idina karinay you see ka waxa cuno wiilkaaga sababtu uu cuna maxay tahay
badda daraaddeed. maxaa badda geliyey ninkii aad arkayseen aan idiin tilmaamay yuu ahaa dhalashadiisu ingiriis. all that planiskaas oo dhan a b c d. dan qaybta kale waxaynu ka hadli doonaa dagaalka hobyo laga galay ay ka galeen ciidamada maraykanku ciidamada ingiriisku qabiilada u dhashay hobyo laftigooda madaxweynayaashii soo maray puntland iyo galmudug professor ipi xasan sheekh maxamuud aan allah u naxariistay saada cali warsame. intaasoo dhami waxay la kulahaayeen badda soomaaliya. haddii aad aqoonsataan wiilasha qaarkood wejiyadooda fadlan macnahaygu ma ahayn inaan qof uun dhibaateeyo. inaad aragtaan inaan dunidu kuu qadarin aad leedahay xaqayga caalamkan u sheega. beesha caalamku waxay kuu tiriid garaysaa sida adigu aad naftaada u tiriid garayso. this what it is. Seychelles, Kenya, maxkamadda Kenya hal qol aan lahayn kursi aan lahayn video link familkiisa qofka lagu xiro ama markhaatiyaal la doono markhaatiyaal been laga keeno aan lahayn hubkii qofka aan lagu hayn calankii soomaaliya maxkamadda la fadhiyo sugaaya in lagu xukumo qarannimadii soomaaliyeed isagoo huwan. su-aashaana waxaan weydiiyey madaxweynihina sheekh shariif haddii aad daawatay programkii hore. I was witness anaa indhahayga kusoo arkay idinkuna caawa markhaati ha ka tihin. taasi waxay ku caddaynaysaa inaanan dulmin madaxweynihiina anigoo dad kale luku leh ay daacad iga ahayd waxa aan weydiiyey wax jiraa inay yihiin oo weliba si hadalka qallafsan aan u iri si uu u dareemo dhibaatada ka imaan karta. waxaa ka qayliyey oo diiday dadka yuhuudda ku nool Kenya oo yidhaah laga bixiyo dadkan dharka. meeshu carabtu ay exactly samaynaysay inay calankaaga ay geliso. macnaheedu maahan yuhuuddu waa kuu wanaagsan tahay xanuunkay soo mareen in calankooda dadka looga sooco laguna dilo. adiga calankaaga dadka laguu geliyo maxkamad lagu geeyo dembi walbood gashado xaq u leh in lagu xiro ama lagu dilo ama lagu daayo. laakiin inaad cadaalad hesho dunidu cadaalad ma aysan falin. fundinka yaa bixiyey European Unionka yaa dhisay European Unionka yaa mas-uulka ah European Unionka. xabsiyada soomaalidu waxay oogyihiin sidaa marka laga reebo Somaliland oo UN iyadoo ay dhisatay markii wuxuu ahaa project. wiilashaadu waxay oogyihiin sidan kuwana waa kuwa cusbaaya lasoo qabtay oo Seychelles la geeyey kuwa exactly the same nin walba calankiisa shafka ugu dhegan. kulligiin waxaan idin leeyahay cimri ku qaadasho wanaagsan. waxa aad aragteen hopefully in wax badan ay idinkaga baxeen. idinkuna aad garan kartaan